wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kaalin weyn oo muhiim ah kaga jirtaa horumarinta dhaqaale iyo wax soo saarka dalka sidoo kale waxay dadaal ugu jirtaa inay abuurto fursado lagu soo dhaweynayo maalgashatada macdanta dalka gudihiisa iyo sidoo kale dibaddiisa waxaanay qaaday talaabooyin kala duwan oo lagu horumarinayo isla markaasina lagu dardargelinayo mashaariicda waaweyn ee macdaneed kuwaas oo ka socda badiba dalka maadaama macdanta dunidu tahay mid lagu jecel yahay isla markaasina yar yihiin dalalka laga helo balse ay Soomaaliland tahay dal alla ku manaystay macdanta macdanta laga helo Soomaaliland waxay hodan ku tahay noocyo badan oo macdan ah kuwaas oo muhiim u ah suuqyada caalamiga ah waxaana kamid ah macdanta laga helo Soomaaliland higsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku horay mashaariicda macdanta ee ka socda gobolada dalka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka duuleysa horumarinta iyo dardargelinta hal-abuurka macdanta waxay dalka gudihiisa ka wadaa mashaariic horumarineed kuwaas oo kala duwan isla markaasina ka socda gobolada dalka gaar ahaan gobolada Awdal, Gabiley, Maroodijeex, Saaxil, Togdheer, gaar ahaan Faqaayub iyo gobolka Sanaag iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaaca cirka ku horay mashaariicdan waxay muujinaysaa sida ay Soomaaliland u noqon karto xarun muhiim ah oo istiraatiiji caalami ah isla markaasina ku saleysan macdan qaali ah iyo sidoo kale kuwa muhiimka ah adduunku u baahan yahay haddaan macdantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helay Soomaaliland maanta waxay taagan tahay xilli taariikhi ah xilli awoodda iyo kheyraadkeeda dabiiciga ah u diyaarsan yihiin in loo helo bedel horumarineed maalgashi iyo kobac dhaqaale oo waara dhulka hoostiisana waxa ku jira hodantinimo aan xadidnayn iyo foornada dahabka ah oo aan weli dhamaystirmin tan oo dhani waxay cadeyn u tahay inay Soomaaliland leedahay mustaqbal kobiciisa oo ka iman karo kheyraad dabiici ah oo weli la gaadhin halkii ugu sareysay haddaba Soomaaliland Mineral Expo 2025 waa madal dahabi ah oo aan la seegi karin halkaas oo isugu imanayaan dal iyo dibad cilmi iyo kheyraad fursad iyo maalgashi dhaba bandhiga carwada macdanta ee Soomaaliland ee sanadka 2025 carwadan waxa lagu soo bandhigi doonaa dhammaan noocyada kala duwan ee macdanta laga helo Soomaaliland waxaana ay fursad gaar ah u tahay dhammaan shirkadaha khubarada iyo bulshada xiisaysa horumarka dhaqaalaha iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ee dalka laguna hirgelin doono waxa soo socda isla markaasina lagu gaafreyn doono mustaqbalka dhow waxaana ku marti qaadaynaa ganacsatada khubarada shirkadaha gudaha iyo dibadda jaamacadaha dalka iyo bulshada oo dhan wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay si rasmi ah u shaacinaysaa qabashada carwada macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland 2025 oo ah madal weyn oo lagu soo bandhigayo kheyraadka macdaneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland kamid noqon kuwa bedelaya kheyraadka qaranka isla markaana fursad u rogaya waxaana madashaasi la qabanaya 15 ilaa 16 Disembar 2025 waxaan ku casuumaynaa dhammaan maalgashatada ama daneeyaasha macdanta gudaha iyo dibadda shirweynahan 2025 ee macdanta Soomaaliland wasaaraddu waxa ay diyaar u tahay fududeynta dhammaan imkaaniyaadka uga soo qayb gali karaan dhammaan daneeyaasha hadday noqoto dalku galada iyo wax allaale iyo wixii imkaaniyaad u baahan yihiin